السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa todobada waxyaabood ay gabadha ku noqon karto gabar isku kalsoon oo horumarsan. nacam kalsoonida iyo kalsoonida waxay ka mid tahay horumarkaaga, oo waxa waaye haddii aadan isku kalsooneen waxay ka dhigan tahay ma horumarsanid. ma arkin dad badanaa horumarsan dhinac walba ka dhisan laakiin aan kalsooni lahayn oo kalsooni aan isku qabin. oo kaba soo qaad qofka markuu maanta soo labisto kale uu ka dharqaalisan yahay wax walba uu labisan yahay, haddana adiga uu ka sugayo nacam fikrad uu ku dhahayo ka waran maradeydi ma qurux badan tahay, see kula tahay. nacam aduu wuxuu ka rabaa fikrad iyo inaad dhahdo marada waa qurxoon tahay ama ma qurxoono, because asaga iskuma kalsoono. sina haddii loo fiiriyo waa qof ka qurux badan ama qof ka labis qaalisan. soo marka taasaan rabnaa xagga dumarka markina la yiraahdo kalsoonideena maxaa la dhahaa waxyaabo badan ayaa hoos u dhigo. gabadha intay yar tahayna dhaawacyo badan ayaa soo gaaro, markay guursatana dhaawacyo badan ayaa qalbigeeda soo gaaro. sababta oo ah waxa waaye gabadhii oonan cilmi u lahayn ama aanan adduunkii loo sharaxin ayay adduunkan qasan dhexda ka gashay. soo markii gabadhii adduunka dhexda ka gashay waxaa u imaanayso arrin ah maxaa la dhahaa caqabado badan, inuu qalbiga ka jabo, in qofkaa muxuu waxaan iigu sameynayaa. nacam dhibaatooyinka adduunka ka dhacayo dhan way ku cusub yihiin, mana loo sii sharaxin. oo gabadha hooyada dhashay waxay ka ilaalisaaba inay hadallada ay maqasho. naahana dhagaysaninay kac orqolkaas gal, naahana dhagaysaninay bax orqolkaas gal. maamada markay dad kale u yimaadaan ee istiraahdo arrimaha laga wada hadlo, qofka koowaad ee ceerinayso waa gabadheeda, oo waxay diidaysaa inay waxaan maqasho. wixii marka ay gabadhii saa u dhaga xirneed markii la guursaday guur iyo nolol ku dhacdo waa qof dhagool ah. qaladkii yaroo lagu sameeyo miraayadeeda way jabaysaa. number 1 miraayada gabadha qalbigeeda saaid u jab wax yaraa qalbiga ka jabinayo oon micno lahayn oo ay ka kabsan karta, laakiin waxa waaye ma fiicno qofka bilaadanka in qalbiga laga jabiyo. marka maanta waxaan kaga hadlaynaa only gabdhaha. nacam sidee baad ku noqon kartaa gabar isku kalsoon ama horumarsan. arinta koowaad ujeedada koowaad, gabadha waa in aad leedahay ujeedo iyo dan. gabar iska socoto adduunka horumar ma gaarayso. waa inaad dan iyo ujeedo leedahay, ama owlaad hayso ama ayaadan haysan. wardanta aan leeyahay sanadkani muxuu yahay, wardanta aan leeyahay maanta maxay tahay. nacam dan inaad leedahay. qofka bil'aadamka waa inay wax wadaan. maxaa la yiraahday qofka waa inuu hadaf leeyahay. soomaa hadafkaaga muxuu yahay? horta waa inaad hadaf leedahay, hadaf meel ku xiro. wax alla adduunkan wax alla iyo wixii aad rabtid waa la gaaraa, wax aan la gaarin ma jirto. laakiin wax walbo waa inaad hadaf iyo ujeedo leedahay. lambar 1 gabadha waa inay hadaf leedahay. tan labaad ayaa waxay tahay waa in aad adiga maxaa la dhahaa aaminsanaatid. maxaa la yiraahdaa inamal acmaalu binniyaat. horta niyadaada wixii aad rabta gasho marka hore. tan labaadna waa in aad naftadaada aad aamintaa. qof kale inaad aamintid ma aan hebelow waxaan ii qabay, heblaayo waxaan ii qabo, inaad qof ku tiirsanaatid taa horumarkuma gaaraysid. taana maxaa la yiraahdaa kuma riyadaada kuma rumoobayso. soomaaliga had mar badanaa waxaa iska ilaalinaa inaan English idin dhexgeliyo, laakiin waxaa isku dayayaa inaan luqadeyda si faseexa u isticmaalo insha Allah tacaala. tan labaad waa inaad is aamintaa naftadaada. tan saddexaadna waxay tahay in aad fiiridaa qofka aad adiga tahay iyo tilaabta aad qaadi doonto. shalay haddaad dan inta bilowday danti kaasoo xirxirantay
ma ahan inaad ku sii socoto haddana waa inaad tilaab kala qaadaa ma ahan qofku hadduu kaba soo qaad uu qaldamo kaba soo qaad gabar baa qaldantay qaladay ku dhacday qaladkii markay ku dhacday wax adiga kuu qurxoon ma ahan waa wax mujtamaca dhogorta kaa siibayo ma ahan inaad ku sii socotid marka dadka markuu qalad ku dhaca labaa ku dhacdo qof wuxuu raacaa qofkan hadalkiisa nacam mujtamaci magaaladii oo dhan hadday idhahaan qoftaani waa qof badda ku dhex dhacday qoftii say usii socota iyadana badda dhex fariisanaysaa because waxay leedahay dadkii oo dhan waxay iga aaminsan yihiin inaan badda ku dhex dhacay marka baddaydan iska dhex joogaya no ma ahan in aad qofkan wuxuu uu rabo inuu kaa samaysto tan labaada waxay tahay qofka kale qofkaasna horta qofkaas wuu quustay qofka kalaa kuu soo haray qofka kalena wuxuu noqonayaa inuu isqariyo maantoo dhan qaladkii uu galay dartiis qofkaanu isku nabnabaa oo wuxuu leeyahay bal inaad kalsooni qofkan ka raadi qofkan u daba dhaq qofkan daba joog bari baa qalad ku dhex dhacday no taas ma ahan qaladkaaga waa inuu kaa dhigaa qof adag mar haddaad qalad ku dhacdo marka labaad waxaa la rabaa qof adag inaa noqoto tilaabtii hore hadday iga qaldantay tan labaad maxay tahay inaa dhahdid waa bal adduunkan aan saaranahay bal fiiri qof aan weligii qalad ku dhicin oon hal qalad soo gelin oo adduunka inta dhashay ee asagiyo nadiifahoo saliixa haddana godki la geeyay itusi iisheeg qofaan weligii qalad ku dhicin oo qofaan dhalinyaranima soo marin qofaan balaayo iyo hoog lugta la soo gelin iisheeg adduunka ma jiro laakiin waa inuu qaladkaaga uu kaa dhigaa qof adag ma ahan inuu qof jilacsan inta kaa dhigo beri baa qalad ku dhacdee qaladkaaga ma ahan mustaqbalkaaga oo dhan inaad u baabi'idoo lagu dhaho heblaaya beriye badda ku dhex jiri jirtee maxay tahay no adiga horumarkaaga ha kuu hadlo naaga horumarsan markaad noqotid oo aad ka horumartid qaladkii ma sheegi karto 15 sano ka hor hadal dhacay arrimo dhacay kama hadli karta maanta markaad cidiyaha ku socotid no qofka hadli kara male bal fiiriya leeyahay shalay maxaa ka hadlay maanta fiiri so taas waa midda afaraad Soomaa tan shanaada ku soo hartay wax la yiraahdo nasiibkayga saan ii galay nasiibkayga xumaay nasiibka wax nasiib la yiraahdo ma jirto maalin baa dhalatay maalin aad dhimanaysaa inta u dhax ilaahay amalkaaga ma uusan qorin waxa kale waa wax adiga iyo nacam ka fiirsasho la'aantaada ama fudaydkaaga ama maxaa la yiraahdaa fikriyaradaada ay ku geysay laakiin dibba ma lahano waxaan nasiib waa la ii qoray maxaa la dhahaa waxaan waa adiga wax lagu qoray ma ahani waa waxaadan ka fiirsanin Soomaalida waxa intaada falin ka fiirso soo waada wax aadan ka fiirsanin soo marka waxaa laga rabaa in aad wax walbo aadan dhihin nasiib oo igu dhacay nasiibkayga saanahay qof cuqdad badan oo maanta oo dhan yuusaayo waa inaadan noqon waxa way dhici karaan laakiin maxaan sameeyaa waay marka maxay tahay waxa labaad oo sameyn karo wixii koobaad arintan koobaad way halaaw arintii labaad plan A haduu ka baabo plan B la soo bax maxaa okay ka soo gudub taa markii laga soo gudbo waa tii shanaad tan lixaada waxay tahay nacam lixaada waxay tahay in ii sheeg in aadan qof aadan la sheer garaynin horumarka iyo danta aad adiga leedahay because adduunka waxaa ku nool dad maskaxdooda yar tahay adduunka waxaa ku nool dad cabsi ku jirto maanta hadaa dhahdo heblaayo dukaanaan aniga meeshaan rabaa inaan ka furto tusaale ahaan Allahu akbar heblaayo aad dukaamadooda deen looga daldashaahe ma saacadana dukaan adiga meeshaan aad ka furto aad wax ka helaysaa marka waxa ay ka hadlayso qofkaas ma taqaanaa iyada cabsida ku jirto waxay ogtahay heble inaan wax laga gadanino ayada haday furo lahaydna aan laga gadan lahayn soo marka cabsideeday ku sharaxaysaa soo marka qof cabsidiisa yuunan adiga ka celinin horumarka aad sameey rabto wax alla iyo wixii aad is leedahay oo qalbigaaga uu ku dhaho horumaraad ku gaaray waa inaad samaysataa laakiin ma ahan inaad qof la sheer garayso
because small minded dad la dhahaa jirto oo maskaxdooda yarta fakarkooda yaryahay ka gudub taas waxaa ku soo xigto number 7 waa midda aan ugu jeclahay waa in aad adiga aad isla weyn tahay aadan ahayn qof raqiisa oo dhulka yaallo heblaayo waa iska cagacado qof la dhaha inaadan noqonin waa in aad qof full tahay qof oo xag walba ka dhisanoo labis ka dhisanoo karti ka dhisanoo guri ka dhisanoo guda iyo banaanba ka dhisanoo nacam banaankaas markay maraydo mujtamaca qofay ku faanaan wallaahi qoftaas waa qof adag lagu dhaho maahano heblaayo waa jilacsan tahay maryaheeda inta ka jiitamaya intay ka dhacday marka lagu dhahaayo nacam qof wanaagsan adigoo haddana qof adag noqon kartaa full of yourself waa isla weyntahay markaan aniga isla weynaado oo noloshayda aan dhulka ka qaado oo aanan qof daciifa aanan iska dhigin ayaan aniga dadka mujtamacana ama ay ugu faani karaan ama aan wax u qaban karaa laakiin aniga markaan qof cagacad iska ahay cagacad hindiyaan ka keenay hindi dacis laan socotaa arkan hindida cagacadka miyaan dhihi jiray marka dadka marka qof iska cagacad maxaa laga sheegaa waxa laga sheegaya maxay tahay seenberine mid kaliya oo aad laga rabo inaad iska ilaalidana waxay tahay in aadan weliga iyo allaha aadan ku mashquulin qofka kale oo ama filka ama faca ama dariskaaga ama asxaabtaada waxa ay haysato in aadan ku mashquulin in aadan tartan la gelin adiga karakterka qofka aad tahay adiga aad isu soo saartay si gooni adiga oona qofna koobiyeyneynin qofna tartan ugula jirin taas dhibka ay keentaa waxay tahay sembir markaad qof koobiyeynaysid laba cabsi way ku haysaa cabsida koobaad qofkaani hadduu markaa xoolo badiyo ama kaa nacam danihiisa iyo wixiisa kaa horeeyo cabsiyo ku gelinaysaa adiga dhanna waxaad noqonaysaa qof 24/7 cabsi ku noolaa noqonaysaa tan labaadna waxay tahay wax aadan gadan rabin iyo qarash aadan isticmaali rabin aad 12 maanta aad isbeend gareynaysa si aad qofkaas u dhaafto ama aad uula meel joogto soo marka ha isku dayin in aad qof isla barbar dhigto qofnaha isla barbar dhig intaas caalamka ilaahay kaliga ku abuuray qof kula mida adduunkan hadii la fiiriyo lagama soo helaayo adigana marka inaad qof iskala mid dhigto iska ilaali never ever weliga qof ha iskala mid dhigin ama ha kaa saraydo ama ha kaa hooseydo ha iskala mid dhigin soo marka sheekadeeni halkaasaan kusoo gabagabeyneynaa horumarka dumarka every weekna waxaan soo gelinayaa video ku saabsan thank you so much السلام عليكم ورحمة الله وبركاته